Boorama marka laga tago degmooyinka hadda soo kordhaya waxaa loo qaybiyaa 4 degmo oo waaweyn. Afartaas oo kala raaca afarta jiho ee waqooyi galbeed, waqooyi bari, koonfur galbeed iyo koonfur bari. Afartaas degmo ee loo qaybiyay Booramada qadiimiga ah waxaa loogu kala magac daray culimada kala ah Sheekh Cismaan, Sheekh Makaahil, Sheekh Axmed Salaan iyo Sheekh Cali Jawhar. Degmada waqooyi bari waxaa loogu magac daray Sheekh Cali Jawhar, halka Sheekh Makaahil loogu magac daray degmada koonfur galbeed. Degmada waqooyi galbeedna waxaa loogu magac daray Sheekh Cismaan, halka Sheekh Axmed Salaanna loogu magac daray degmada koonfur bari. Culimadani waxay isugu jiraan kuwa casrigan dhow noolaa iyo kuwa casriyo hore noolaa, halka qaarkoodna ay yihiin culimo deegaanka deganeyd ka hor magaalaysiinta, halkaas oo qabrigiisa lagu xusay in uu noolaa qarnigii 7aad ee hijrada suubanaha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Culimada casriga noola ee degmooyinka Boorama loogu magac daray waxaa ka mid ah Sheekh Cali Jawhar Boqorre oo dhashay sanadii 1890kii, cilmiga diintana ku bartay deegaanka, marxalad dhexe u cilmi doontay Herar, Xijaaz iyo magaalooyinka barakaysan ee Maka iyo Madiina, Masar iyo meelo kale. Waxa uu ahaa caalim arday badan oo wax ka dhigay magaalooyinka Laascaanood, Jigjiga, Burco, Hargeysa, Boorama iyo deegaano iyo degmooyin badan oo intaas u dhaxeeya. Sheekh Cali Jawhar oo ah mid ka mid ah culimada aadka loo daraaseeyay taariikhdooda maadaama uu casri dhow noolaa, waxa uu geeriyooday sanadii 1972kii, waxaana uu ku aasan yahay xabaalaha dhinaca waqooyi ka xiga masaajidka Majmaca Tabliiqa ee Boorama. waxaa isla degmada Sheekh Cali Jawhar ku yaala buurta Sheekh Cali Jawhar oo fikteeda ku yaala maqaamka Sheekh Cali Jawhar oo hadda masaajid ah, laakiin ahaan jiray goob sheekhu ku khalaaweeyo oo naftiisa kula keliyoodo digri iyo daraasayn noogu baxo. waxa kale oo iyana ku yaala degmada Masjid Jaamaca Sheekh Cali Jawhar, loona yaqaan Masjid Jaamaca Weyn, dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Cali Jawhar iyo dugsiga sare ee Sheekh Cali Jawhar. Sheekh Makaahil, imaamka loogu magac daray degmada koonfur galbeed, waxaa lagu qaldaa waalidka ay kasoo farcameen beel ka mid ah beelaha deegaanka oo isla magacaas caan ku ah. waase caalim ka waqti dambeeyay xilliga uu noolaa waalidkaasi, waxaana isla degmada ku yaala masaajidka Sheekh Makaahil oo mar dambe magaciisa loo bedelay masaajidka Cumar ibn Khadaab. masaajidkaas oo mawlac u ahaa cubaad weli haysata raadkii sheekha. Sheekh Axmed Salaan oo ah sheekha loogu magac daray degmada koonfur bari, isla markaana loogu magac daray mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee deegaanadaas, waxa uu ku jiraa culimada magaca weyn welise sugaysa in sooyaalkoodii la daraaseeyo. kuma ay koobsan inay culimo ugu magac darto degmooyinkeedii hore ee afarta ahaa. waxa kale oo aan sida hore usoo xusnay goobo badan oo dugsi iyo masaajida ka mid yihiin ay ugu magac dartay culimo hore iyo kuwo dambe, sida Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Jaamac oo loogu magac daray masaajidka caanka ah ee Harawa, iyo dugsi hoose dhexe oo dhaca degmada Sheekh Cali Jawhar, gaar ahaan xaafadda Fardaha. xidhiidhka Boorama iyo culimada iyo imaamyadu intaas kuma eka. Boorama laba marka loo kala badho, degmooyinka waqooyi oo ah Sheekh Cismaan iyo Sheekh Cali Jawhar waxaa la isku yidhaahdaa Axmed Gurey oo ah imaamkii weynaa ee taariikhda ku caan baxay, halka labada degme ee koonfureed waa Sheekh Makaahil iyo Sheekh Axmed Salaane, iyagana la isku yidhaahdo Xalane. sidoo kale gudaha magaalada culimada ku aasan kuwa deganaa ee maqaamyada ku lahaaba waxaa ka mid ah Sheekh Cali Ayaanleh, Sheekh Nuur Qaadi, Sayid Suleymaan iyo Sheekh Ibraahim Bakaal. intaasi waa qayb ka mid ah degmooyinka, goobaha, xaafadaha iyo xadrooyinka magaalada dhexdeeda ah. laakiin sida aan hordhaca kusoo sheegnayba, Boorama waxay dhacdaa xudun xarumo xadaaradeed ah, laga soo bilaabo Adar ilaa Berbera iyo Bullaxaar inta laga gaadhayo, dhanka kalena laga soo bilaabo Saylac ilaa Jigjiga iyo Baabili inta laga gaadhayo. waa juqraafi xadaaradeed oo magaalooyin dumay, jidad ganacsi iyo goobo cilmi ka buuxaan. culimada Soomaalidu taariikhda islaamka ku gashay ee sayliciyiinta loo yaqaanana xarumo u ahayd. isku socodkaas xadaaradeed iyo xarumahaas waxaa ka hadhay dhaxal culimo oo badan oo aan qaarkood Boorama gudaheeda ku xusnay, halka kuwo kalena ku hareeraysan yihiin, sida Sheekh Yuusuf, Abu Qays, Camuud, Abbase ama Cabbaas iyo buurta Sharlaganaadi oo dhammaantood ah deegaano iyo buur culimo loogu magac daray oo ku hareeraysan Boorama. halka dhanka Itoobiya ay raaceen Awbarre oo ah magaalo, iyo Awooble oo iyaguna sidoo kale xambaarsan magac culimo. sooyaalkan, sumadahan iyo sida ay dhaxalkaas ugu dhagtay darteed ayaan u hubinay Boorama cumaamada magaalada awliyada.